gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu fariin u diray xubnaha golaha dhexe ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye kuwaasi oo ka qayb galaya shirka golaha dhexe bari uga furmi doona Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. Gudoomiyuhu waxa uu ugu baaqay xubnahaasi inay waqtigana ilaaliyaan isla markaana ay u soo diyaar garoobaan inay ka qayb galaan shirkaasi oo arrimo muhiim ah lagaga hadli doono. fariin baan halkan ka dirayaa maanta fariintaas oo ah ku saabsan shirka qabsoomi doona barito oo bisha October ay tahay 28 bilaabmaya hotelka Mansour ee ku yaalla Hargeysa. waxaan u sheegayaa dhammaan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxayna soo galay sidii fariintii hore bay idinku soo gaadhay inaynu shirki qabanno golihii dhexe ee ka soo baxay shirweynihii afraad ee xisbiga ee aynu qabanay bishii dhaweyto sharciguna ayna farayo bil gudaheed inaynu ku qabanno shirkii golaha dhexe si hawlahayna hor yaalla ay u ansixiyaan. markaa waxaan farayaa oo aan codsiya oo ogeysiisa in waqtiga la ilaaliyo. sidoo kalena waxa uu xubnaha ugu baaqay in ay maanta ka qaataan kaararka xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye. galabta maantadan aynu joogno markay gaadho 12 wixii ka dambaysa kaararkii baa la bixinayaa xarunta xisbiga ayaa lagu bixinayaa kaararkii golaha dhexe. dadkii liiska ku soo baxay aynu baahinay axadii ayaa soo doonanaya kaararka. marti sharaf ma jirto waa inta golaha dhexe ku soo baxday liiska inay yimaadaan oo ay waqtiga dhowraan ilaa caawa waa la qaadanayaa ilaa kaarka ugu dambeeya waanu joogaynaa xarunta caawa. berri wuxuu inoo bilaabmayaa shirku 8:15. waxaan rajaynayaa in sidii hore uga soo qaybgeli jirteen ee waqtiga u ilaalin jirteen ay u ilaalin doontaan. waxaynu ogsoonahay xagga caafimaadka sidii shirweynihii aynu u qabsoonnay oo kale ayaa qof waliba u ilaalin doonaa. qaybta caafimaadka ayaa joogta hoolka. fariinta ay idin faraan baa qaadan doontaan haddii ilaahay yidhaahdo waa inoo berrito haddii ilaahay nafta inoo daayo iyo shirkeennii oo inoo qabsooma. Cabdikariim Siciid Saalax, Telefishinka Cable, Hargeysa.